واي بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Saciid Ismaaciil Sheekh Ibraahim waxaan ahay tafatiraha majalada Somaliland Chronicle maanta waxa inoo martiya madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo xilka hayay muddo 7 sanadood ah halkaasi uu wareejiyay bilowgii sanadkan waraysigeenu maanta markaa wuxuu ku koobnaan doonaa ama uu inta badan magaranaysaa si gaara uu eegayaa baadidoonkii aqoonsiga Somaliland iyo meelaha badan ee magaranaysaa ay arrintaasi nala gashay madaxweyne soo dhawow aad iyo aad baad ugu mahadsantahay waqtigaaga inuu markaa waxaanu samaynaynaa bal si waqtigan aan u dhowro sida ugu dhaqsaha badan baan doonaya su-aalihii ugu gala su-aasheena koowaad waxay ku bilaabmaysaa xukuumaddaadu markii ay cusbayd istaraatiijiyadda arrimaha dibaddu waxay u ekeyd colka wadhaf ma lagu dayay oo meelo aad u fara badan oo weliba ay ka mid tahay wadamada Africa oo kale sida hadduu beedankeeda leeyahay Malawi iyo Guinea Conakry oo adigu weliba ta dambe aad tagtay marka waxaad moodaysay inaad yaro bilow ahaydeen oo aad magaranaysaa waxyaabo badan horta bal halkan ma lagu dayay halkan ma laga eegay haddana magaranaysaa marka dadku ay dib u eegaan qaarkood ay falcelin badan ka samaynayeen oo ay u eg tahay inaan maxsuul badani ka soo bixin bal bilowgaa hore ee xukuumaddaada nooga yaro sheekee sidii ay ahayd magaranaysaa istaraatiijiyadda iyo policyga arrimaha dibadda iyo saad bal waxay u raadinayseen بسم الله الرحمن الرحيم aad baad mahadsan tahay bilowgii aanu bilowno shaqada sida xukuumad waliba ku waajibaha ay samaysaa caalamka oo dhan xukuumaddu marka hore waxay samaysanaysaa dee bolisiga ay ku shaqayn lahayd 5 sano iyadoo ka duuleysa kolba xisbiga ay kasoo baxday barnaamijkii u yaalay anaga xisbiga kulmiye marka dee dhinacyo badan baa laga eegayaa oo horta arrimaha dibaddu wasaaradda arrimaha dibaddu waa muraayadda adduunka uu ka dheehanayo hadba siyaasadda gudaha ee dalka siyaasaddu way wajiyey badantay laakiin marka hore dalka waxaa la eegayaa awooddiisa dhaqaale aqooneed ciidan iyo wixii la mid ah resource haddii laga eegayo oo imka adduunku wuxuu asaa dhulka hoostiisa malaha dushii wixii adduunka sare waa la dhaweeye marka haddii aanay arrintaada guduhu muraad wanaagsan bixinaynin dalalka ada xidhiidhaysa dee in badan bay hubsanayaan marka waxaynu nahay dal xorriyaddiisii lumiyey isagu oo barihii dhexdankii baa jirta ingiriiska iyo waxa tiri maxmiyadii gobonimada diiday marka soo gooshadii adduunka inta laga dhaadhicinaya awooddeennii dhaqaale iyo haddii la idhaha miidiya iyo aqoon ahaaneed 91kii arrintaasi ilaa iyo 30 ilaa dhowr iyo 20 weyn ugu dhib badnayd marka waxaanu si ay dee arrimaha dibaddu u fusho oo mudnaanta koowaad arrimaha dibaddu waxay noqotay aqoonsi in la helo oo adduunka lala xidhi karo la isfahamsiiyo marka waajib waxa weeye albaab walba garaacda marka waxaanu qaadanay siyaasad odhanaysa dadka iyo dowladaha tii kasta ee markaynu isu sheegno waxaanu nahay hebel dee waxaad odhanaysaa anigu hebel oo caynkaas waxaasaan kaa doonaya waxaa waa inuu cadi marka caalamka oo dhan waxaan u diray waraaqo dal walba ku nacab iyo kuwaan ku aqoon iyo kuwaan ku haleelayn iyo ku laga yaabo wax yar baa kasoo jawaabay waxaan u sheegaynay in koobanuun inaanaan ahayn goosasho oo aanaan xeerka Afrika jabinayn inaanu ahayn dowlad intan imika aynu aad u kor u qaadana dhageystay sidaa darteed
aan u baahnay ma ahana aqoonso uma dira waraaq waxaan ahay aanu ka wada hadalno oo aanu idin fahamsiino ood naga dhegeysataan kayskayga marka in albaab walba la garaaco markaa garanay waxay 19 bay ahayd waxaa jira shir uu lahaa midowda africa oo lagu qabanaya niger halkaa galaangal laga sameeyey oo rag badan oo dibadda ka shaqeeya oo qaarkood aqoon badan u leeyihiin siyaasadda caalamka ay xidho badan leeyihiin ayaa waxay sameeyeen in shirkaa aanu ka qayb galno oo haddii la waayo official cidi ka mid in rasmi lanoo marti qaada in la ogolaado inaanu ka loob galayno shirkiisa sidelines ha kolkaa dowladihii arrintaa markaanu qoray ka soo jawaabay eeri waa diyaar baan inaan ka dhageysano waxaa ka mid ahayd Guinea Conakry oo oday weynoo raanqalaa marka dambe uu joogay Alpha Conde ha kolkaa ninkaasi wuxuu lahaa taariikh aad iyo aad uu in badan u soo dagaalamayay dimuqraadiyadda iyo xorriyaddu 40 sano soo mucaarid ahaadoo dadka u cawda dowladaha dhibaato dhan u dhegeystaa wuxuuda laakiin wuxuu ahaa nin aad markaa u da'weyn marka markii aan u qoray waraaqo badan oo ninbaa noo dhexeeyey aan ka heshiinay wax walba inuu aad iyo aad ugu qanacsan yahay doorashooyinka nabadgelyada aan kale kaga duwannahay qoladan afraiskana inama taqaanaba inama kala taqaanaba magaceena qofka adkaaba sidaan ku tagnay si wanaagsan buu noo soo dhaweeyey waa la wada ogeytaa marka arrinta waxaad isku qaadeen meel aan wax badan ka soo bixin anigu waxaan qabaa inay ka soo baxday furaha maaragtay marka guriga la furaaya in yar ee magaca Somaliland Afrika maqashiyey inuu ahaa shirka socdaalka waayo waxaan ku heshiisahay in maalinta shirka la furaayo ka hor aanu israacno wasiirkiisa khaarijiga oo Niger ilaa hudheelka ba haddaanu degan oo aanu shirka loo galayno waxaa sii tegaya rag kale oo Somaliland oo ka soo shaqeeya meelaha ee Niger markaa kusii socday iyagoo tegi lahaa oo dalalkay ka joogaan ka imanayay iyaguna wada rag dee ina gargaara kolkaa qolada xamar borotokoolka ay nasiyeen markay arkeen waxaanu ballansanay odayga habeennimadii 7 afartii meelaha ayay xidhigka u jareen markaasay waftiga cabasheen oo iyada jeerimaankeeda u direen right markaasay marka wax xidhiidhana mala dee xidhiidh haysana male waxaa kaloo kaashadeen dowladaha sida Egypt Masar oo kale iyo qolooyin ka soo horjeeda oo dimeesha atorayaala oo miiska garaacayna waa sideysaan marka odaygii waxaa ku dhacday jug aan la filaynin dee ismuu lahayn halkaasay ka dhacaysaa hawsha qolada in aad caawinayso toddoba habeenimo yidhi brafdan isku arago waryaha waxaad caawada socotaa waxaad isku keliga ay kaale waanu tegey marka dee wuxuu sheegay xaqada wuxuu yidhi brashinkaana waa wati sana naga dhabeex waanu ku qanacnay wixii waraaqaad soo jeediyay dokumentiga taariikhdan akhrinay waanu baarnay dad badan oo xaalka ogna waanu waraysanay markhaatigeeda la isku furay hase yeeshee eedde nimankii shirka Afrika ayaa jeermaankoodii iyagoo culays kaga yimid wala arrintaasi dacwad baa lagu haystaa waa la dacwaday markaa maaha waan ku geyno qola dacwad baa lagu qaaday dal Afrika farageliye oo kala gooyey baa laga dhigay weliba dee Masar oo ilaa xilligaas dee dadku intan mar walba iyadu haddii la soo qaado 2 qolo haddii la soo qaado 3 qolo haddii la soo qaado Soomaaliya iyagu safka hore ku jiraan waa Qatar waa Masar iyo Soomaaliya waa isku baray haddaba intoodaba waxaan jeclahay inta kale isa soo cadaysaa dalal badan oo diidan baa jira Soomaaliland inay laakiin sidaas soo muujiya marka waxaan qabaa shirkaasi wuxuu ahaa shir aad iyo aad u wanaagsan socodkaas kuwa ugu faa'iido badan baa waayo korbu inoo qaaday shirka Afrika dhexdiisa horta ilaa laga hadlo horta weliba cabashadan ku gadaamanay tan waxaan waraaqo badanna waanu ku qaybin shirka waxaa la diyaarinayay oo markaa isagana aad ragga isqaanan u wadeen gabar baa ahayd wasiiraddii Niger ayaa iyana markaa sympathetic noo ahayd horta halkaa dee dagaalkaa la qaaday baa
ayay gabadeen laakiin wuxuu ahaa waxtar weyn wax magaceenna waxaan u baahanahay in dad badan ogaado inoo garaabo kor loo qaado kaasay ahayd weliba markaa dee halkaa waxaan ka dhadhansanayaa inagu dee maaha ma Nigeria oo kalaa oo waa 100 iyo intaasoo milyan ma Ghana oo kalaa war horta bal dadka hala hadla labadaba waftigooda uu nala joogay Nigeria markaan ka soo noqono shirka inaan marro diyaar wahay oo isagu uu ka hadlay Ghana iyada qolo kala hayso iyadoo ka dhawad Ghana waxaan ka dhawad in badan bi xaalkeena taqaanay barigii riyaale inaan ducaale markii uu joogay aad baa xidho laha oo ninka kala doortay xitaa uu yaqaan Soomaaliland Ghana waan u hadalnay baasha maxay ahayd Uganda ka jooga Museveni oo muranay Museveni baad isku aragtay Guinea Conakry maya telefoon ku hadalay markii dowladda qaldiraayay ayuu yiri maxaad kala goynaysaa Soomaaliland tagaasoo korsan ku yiri maxaad adigu taasana ugu soo dushay Itoobiya hoolashay madaxaada soo noorey markuu dulmiga keenan la isku xoreeyo way marka adigu shirkaasi saasoo ah taa siyaasadda islaajiga waxa weeye horta siyaasadda arrimaha dibadda dhibaatooyin badan baan haysta oo imikana inoo socdo weli siyaasadda arrimaha waa philosophical waa siyaasad guud dalku wuxuu leeyahay maxaa ii dana gudaha maxaa ii dana maxaa inoogu dara gudaha Soomaaliland waxa weeye dhaqaale xun shaqo la'aan ayaa taal dhaqaalihiina macdana laguma qodi karo dahab musaarika ilaa aad hesho wax ku taageera u bareero kolka shaqaalaha gudihii waa in la sifeeyaa waxaan ku dalay dhaqaale istaago oo shirka Soomaaliya ahaa aan dhaqaaqin way dadka inta badan waxay ku nooshahay Soomaaliya doolarka in yar ba haysta oo dadka Soomaaliya ku dhibta baalka marka in xasiliyo horta shirkii uu istaago saddex sano bad murqaaq laba dadkeena oo jabhad ka soo baxay oo marka hore aan dowladnimada markii muddo dheer haysanay markii Ingiriiska keenay markii ay ka lutay oo qaasan oo kala wada shakisan oo si koox iyo community iyo maaragtay aan qof tarawtaasi badkooda in la isku hayo sida quraha imka la isku hayn karaa wax ma ka maqleen waxa weeye dimuqraadiyad baanu qaadano doorashooyinka waqtigooda waan qabtaa doorashooyinku waa waxaan ku ugu lacag badan adduunka imanka dowladaha reer galbeedka ee baasha bartiyo waxa laga yaabaa haddii la isu qaybiyo inta codaysay ee dhaqaalaha inuu doolar ku soo hayo qofka codeeyay waa qiimaha ugu qaasa ma jirto $7 iyo xurbar mastiid waxa fare taagtir was shirkeena waxa noo qodayaa waa 500 qof oo bato 600 qof waxa kaaga baxaya 20 milyan US$. waa doorashooyinka ugu qaalisan adduunka ugu dhib badan itaalkeena kama go'do marka waxa qasab inaan doorashooyinka qaban waayo baarlamaanku wuxuu marayay dhowr iyo 10 sano tadawada hoose oo toonay iyo dheer imise jeer baa loo kordhiyay baarlamaanka iyo dowladaha hoose bariga walaha state goori de shan toban sano fadhiyay markaasay dagaalamayaan wali markaa tiraa hala doortana uu sharci waddan kugu diidayaan oo sharciyada ku ciyaarayaan oo dad maarsi dan aad muddo in daafacanay xoolo ay leeyihiin waa growing pains oo dee qof waliba halkiisaasuu dee xejisanayaa laakiin haddana waxay keenaysaa hawshaas dadkii oo dee hadday doonaan qoryiisu wada baxayo oo si community oo caadifadaysan oo qaranka oo aan arkaynin dee inaad ku hayso dhibaato xoog leh marka waxaan saaray inaan noo war dhaqaalaha horta shirkan dejiyo aan hayno number 2 doorashooyinka waynu qabanaa waynu illa qabanaa muddo dhaafka waxa keenaya dhaqaalaan lahayn waxa markaas 2 sano la korinayo dhaqaal lama hayo deganaansho lama hayo number 2 dhibta kala soo baxay waxay mucaarad lama yaqaan marka qofku mucaarad yahay inuu dalka u turo iyo inuu burburiyo ku jecel hal waayo tagay looga baxo waxay in doorashooyinka aanu qabanana waxay siyaasadda ku tasax shaqaale maxaa dhalinyarada laga qaban karaa waanu qiyaasnay dowladdu intee sano qaadi kartaa maxaa dhaqaale kordhi kara shaqo qaran baan bilow oo dhalinyaradu aad iyo aad rajo u qabtay qof baa ka hor yimid marka dambe doorashooyinka la galay dhaqaalahoodii iyo dagaalada dhexdeeda ka dhacay waxa way qaadatay laakiin waxaa dhacday marka dhili hala qabto iyaga hala qabto dee waxa ka soo baxay jaamacadina waxay soo doonayaan kumaanku markaa tiraa 500 baan qaadanaya oo dowladda culays weyn ku ah oo haddana inaad shaqaalaysiiso
oo daba shaqaale kortaan iyana xalkeedu waan helo waan markaanu dibadda usoo jeesana farsamadii markaanu qaadanayno adduunkan ka iibina dimuqraadiyad nabad intan imika waana wadno waxay timid diblomasigii waxa weeye waa tiknikada fulisa siyaasadda arrimaha dibadda aad doosto sidaa dowladda ula xidhiidhaysaa abroojka qof ma yaqaana dadka ma ka dhacsiin karaa ma la fahmayaa ciidka kale waxay leedahay dee kuwaasina way inagu yaryihiin soomaali ahaanba weliba inta bahalahan google kan iyo technologygana ayaa wax badan la bartay waaweyn way ku dhibaan haddana u dabaalanay marka arrintaas saasay taa hore waynu ku soo noqonaynaa arrimo badan oo aan doonaya inaan kaala hadla yaro taabatay inkastoo muxuu ahaaye ay inta badan aan doonaya arrimaha dibadda marka soomaaliyaad soo qaaday oo dee weligeedii allaheed dee dacwadiina la daba taagnay laakiin ta aan doonaya inaan ku bilaabo waxa weeyaan wadahadaladii wadahadaladii somaliland iyo soomaaliya oo aan u malaynaya inay soo bilaabmeen xukuumaddii adiga kaa horreysay allah u naxariistay madaxweyne siilaanyi adiguna aad sii anba qaaday haddaba intaynaan weliba waxyaabo badan oo dee meelaha ka dhacay oo magaranaysa aynaan gudagelin idinku ka xukuumad ahaan maxsuulka aad ka filayseen wadahadallada muxuu ah horta aan kuu sheegay markaa uu silaahi joogayba dee guddoomiya xisbigan ahaado waan ogaa wufudu waxay la tagto shirarka dhowrka intii ugu muhiimsanada madaxweynuhu ka qayb galan waan ka wada qayb galay markaa xoogaal bano shirka arrintaas waxay ka soo fushiyey shirkii uu david cameron qabtay 2012 qodobadiisi waa weynaa labun baan anigu muhiimad siinayaa oo isu dhigmaayey koonfur waxay ka macaashtay in la yidhahda laga saaro kumeelgaarka transition governmentka oo ha loo diyaar garoobo in dee ciidamo iyo amniga iyo laga xoojiyo dowladooda inagana waxa aynu ka dhaafin oo la yidhi soomaaliya iyo somaliland ka wada hadlaan mustaqbalkooda waana markii orsan shir caalami oo intaa leeg la soo jeediyo ha wada hadlaanoo mustaqbalkooda ha wada horta saasay ku timid waay hawshii haddaba inaga xaggeenna waxay ahayd inaynu xoog iyo caqli iyo midnimo ku galno in arrintaa ha wada hadlaanta aynu ka meel gaadhno waktigana ka ilaashano awooddeena garteena dee caalamiga aynu soo bandhigno shirka intii kuntumay dowlad baa kasoo qayb galay haddaanan la soconna mid walba aanbabixiisiya waxaa la waday xogaal baan ka ah shirka haddaba su-aasha taagan iminka waxa weeye haddii la lagu qabto waxaa shirarka inuu badhigoodu london ahaado oo dowladdii fikradda keentay ee waxaanu aastay ahaado ilaa iminka si aanan anugu ogeyn baa waxaa loogu raray turkiga turkiguna xamar buu la safeeyey boqolkiiba boqol taa isagu taa dee u cadaystaybe maxsuul arrinteena mar qura lagama hadal war maxaan isugu nimid hodhaalba yaa la tagaa wakti baa waa la soo roqay de waxa yaro aynu heshiina dadkaas dhex galo waxaan inaga inoo darahayn laakiin shir baan ogaa oo ahaa kii saddexaad ama kii afraad oo uu siilaayi joogu hogaaminayey wuxuu kaxeeyey saddexda xisbiga guddoomiyaashooda cirroo markaa wadani ahaa iyo faysal iyo anigu waan joogo allah u naxariistay ninkaasi maalintaa garta somaliland ninkii ugu xogaansanaa ee ugu aftahamsanaa ee naqi lahaa buu u naqay khudbadiisii xasan sheekhaa maanta loo taaglaayay waxaa joogay kuwii turkiga lagu qabtay weya istanbul baa lagu qabtay istanbulkii lagu qabtay waxaa joogay ordogan oo markaa ahaa ra-iisul wasaare iyo ninkii oglo malaha imika waa istanbul mara ka yahay oglo ha labadaasoo madaxweynaha iyo isu ahaayeen ra-isul wasaare ahaa dadka kale oglo khaariji waa oglo khaariji uu ahaa ra-isul wasaarena wuxuu ahaa ninkaa shir adag buu ahaa markuu gartii sheegtay ee yacni siday ahayd uu dhigay taariikhiyan iyo waxa loo baahan yahay ayuu kacay xasan sheekh waa kaa maqlaayay kale uu maqli doonaa wuxuu yihi walaalkay axmed waa runtiisa waayo aragna wuu ahaa waxa uu sheegayna waa runtii haddaba waxaan odhan lahaa
kala go'a walaal kala lushaa dhaantee arrintaa wixii lagu daweynayo wixii aynu ku heshiina kala tegaynu baa u daranay adaa maanta odayahoo kan ahee oo kana xulumahayo oo degankaasaa kacay wuxuu yidhi mar dee waxaas jiraan maanaan ogeyn iyagu waxay hayaan taariikh uun hore oo ina cabdulla xasan iyo herbay etoobiya qabsatay iyo islaamka lagu soo duulay iyo halkan kamay dhaqaajin dhibaato dhacday dabeetana wuxuu yidhi aniga iyo xasan iyo idinka naga sii horeeya dhammaantay waxaanu tegaynaa hargeysa waxaanu bixinaynaa maxaan ku dhahdaa raaligelin wixii dhaca waa aqreenaynaa xasano dalka si loola sahabaynu gelaynaa laakiin maanta soomaali kala go'da bal ka fikira somaliland iyo midnimada tee faa'iido badan kolle erdogan markaa waa ordagan erdogan baa intaa odhanay waay ha markaa waxaan lahaa bal hadda yaanay dee iminka goyntu ina odhanta bal wixii xaggana ka yimaada ee wixii canigu sida hal eegayo deetana silaaniyo hadalkaa muku jaa wuxuu war shacabkaas maanta shacab xaggaa maqli karayana ma aha anoo maqli karaya wuxuu ku lahay noloshayda intaan noolaa iyo arrinta somaliland iyo soomaaliya waa isku taxantay markuu jaamacadda ka baxay markuu jaamacad tagay in marka xorriyadda ahayd wax badan u gal doctoraan buu dhigay adag haddii haseeshe wixii ka dambeysay shirarkii la tegayay shirarka intooda badanee dambe waxaa ka qayb galay laba wasiir khaarijiya isbedelay maxamed cabdilaahi malahaas afartii hore ka qayb galay ilaa 14 wixii sanadka laga bilaabo oo shira 7 shirbaar ka dhaceen afar iyo 3 mar sanad walba istanbul inta maxamed bixiyo soo joogay runtii maxamed aad u daafacay qadiyada laakiin shirku wuxuu xirmay marka la soo qaado arrimaha culus mar walba waxaan ku noqonaa waxa uu jiray waxaan ku noqonaa waa tashi wixii ka soo baxay airportkii baa la soo waxa la soo qaaday diyaaradaha laga soo wareejiyay halka markiiba waxay yiraahdeen qoladeennii wufuudda tagi jirtay nimankii warqada aan shirka hore qoraalka aan qoreen ku heshiinabayna iyo daba fureeno abaar baa la joojiyay la murmayo toodii bay noqotay oo kuwa la tagay markaa shirkaasi natiijo kamayna helin fursadaas sidii la rabay inooguma hirgelin ismarahi waa nin baa akhrinay Soomaaliya xorno inay madax banaato laakiin dee aqoon la'aan iyo dhaqaale xumo iyo waay aragnimo la'aan iyo dawladda waaweyn oo garabna siiyo oo maaragtay dee sida Turkiga ay gacan galeen qoladan walood ma aynaan ahayn laakiin alxamdulillah haddana waa laga soo gudbo mar walba waa la dhigay dee qadiyada laakiin shirkaasi inta tirada ah iyo waqtiga ay lumiyeen maxsuulan si kaweyn casharada laga bartay mooyaane waxaad magaranaysaa dee meelahan badan aynu dee tegayno iyo waxaad moodaa caalamkana way inooga yara faraduuduuban yihin oo dee iyagu hadday ama aqoonsi ha isticmaaleen ama dee qaramada midoobay ama jaamacadda carabta ama dee meel walbo dee ay naga ashtakeeyaan iyagu markaa miyaanay u ekayn labada inay mar walbo aa wada hadlaysaan oo ama miiskaa fadhidaan ama shalay wada hadasheen ama wareeg kale loo diyaarsan yahay maxsuulka iska daa iyagu miyaanay mar walba caalamka ka iibinayn dee waynu heshiinaynaa dib u heshiisiin wada hadal abaa socdaa halka inagu aynu mar walba lahayn dee waa kala gurasho ereygaas wuxuu baahnaa mar horeba in la gaaro war meeshaa waxuna shirkaas faa'iido inooma laha aakhirkiina wuu kusoo dhammaaday sidii oo masalan iminka qoladan dowladdan cusub ee cabdiraxmaan ciro hogaaminaya markay xaalka wixii akhriyeen soo hormaray ama ay tala qaateen waxay yidhahdeen waanu xidhno hadaladii golaha wasiirada baaskariyey baarlamaankuna I think April shirito wuxuu ku raacay resolution uu leeyahay hala joojiyo laakiin sharcigaasi muu meel marin may resolutionka codkii buu baahay codkii markii hala qaado shirgudoonkii baa ka soo horjeestay taasi imika halkay ka nooshahay waa in la dhaha war waay kuwa dira way baaskarays madaxweynuhu soo jeediyey shirgolona uu ogolay xaggee codka loogu qaadi laayay halkay wax nagaga soo kordheen ee u baahan tahay wax rabay qodobka ilaa halkii nool uma tada laga qabtay nin walba soo wada uu ku daaray waxaad iga warantaa dhaawac heelay baad isleeyahay oo arrinta la iska xidho markay taalo baahan maanta in laga doodo madaxweynaha cusubina uu ku dhiirido yiraahdo war dee rayga soo jeeday maxaa loo joojinaya waxay u egtay marka quus baynu taaganay
oo dowladdan xukuumaddan imika joogtaana waxay u egtay inay casharadii hore dee ina soo maray inay wax ka qaadatay tiri war wadahadal dambe dooni mayno laakiin waxaan doonaya inaad bal waxaad ka fekertaa wadahadalladaa laftoodu dhaawac intee leeg bay gaadhsiiyeen madax banaanida amaba dee aqoonsiga oo dee dadku ay noo arkayeen dad aan dee serious ahayn oo ay soomaaliya dib u heshiisiin ka hadlayaan horta waxaan dacaadaha laysku turturo markay siyaasada dadka aan caadifada wataa markuu wax doonayo ninbaa markuu wax doonaya caadifadu ka xoog martaa qarankaba ama marba dad dhanu communitiga caadifada qaadaado waa la jira haddee taa iska dhig anigu waxaan aaminsanahay somaliland 90% inay aaminsan tahay somaliland inay xorriyadda la soo noqoto aniga waa fikirkayga sabab badanna haddii la sheego doodo waan ku binayn karaa in yarun baan ku sheegaya siyaasiyiintii midnimada ku dagaalamaysay markii shirkii burco la guddoonayey lagu celiyay halkeedii hore iyo shirarkii ka dambeeyeba siyaasiyiin badanoo waaweyn oo hebel la-abaa yaa ka soo horjeedsaday badankoodina xamar bay uga tegeen mid waliba markii waktigiisii ay timid da'da iyo xanuunka iyo dee nin weyne waa geeri u joogay geeridii kusoo dhawaaday hargeysa cod tusoo dalba hargeysa gudahaasi maxay ku tusaysaa qofka somaliland darkii inuu hoygiso somaliland lama horaan waa caws jilaal marka u malayn maayo inay qofna waa inay la gasha cadfada mooyaane weliba raggaan in badan baan ka waraysta markay soo noqdeen nin waliba uu ka murugaysnaa waaye si cadfada wax loo galay halkana cadfad baa lagu gooya war laguma goyni taa intaasa ku dhaafaya waxay ila tahay somaliland laakiin waxay naga xun aqoontii dhaqaalihii tamartii dadkuna markay fuqarana yihiin aanay dee waxaan ay garanayaan aad fahamsaneen sidaa doonaysa heli maysid marka waynu dadaalkeenu ma yaran imikana waa shaqaada imikana meel wacan baynu taaganaha oynu kor u kacnay magaceena adduunka marayo intaynaan soomaaliya ka gudbin oo kolley way kusoo noqnoqonaysaa dee ilan waa dadka dee nagu maranaya dhacdaa jirta mar ma garanaysaa intii xukuumaddaadu jirtay dhacday oo ninka ra-iisul wasaaraha ethiopia prime minister abiy axmed la yidhi wuxuu doonayaa inuu farmaajo hargeysa keeno talada waad badisay oo dee duulduul buu dee nagu soo gaadhay oo dee dhowr qof cabdilqaadir jirdaa ka hadlay markaa talada waad badiso dad badan baad isugu yeedhay oo xitaa uu ku jiro madaxweynaha maanta joogaa bal arrintaasi siday idinla ekayd farmaajo la walwaalayo ayaa diyaarad laga soo dejinayaa bal arrintaa nooga waran oo taas waqti haddaan ku yarakado horta waxay ahayd arrin ku dhacday si kadisa shirkii afrikaa meesha lagu hayay waxaanu helnay oo aad u yaqaanay afrikaankii waxooda aad u dadaalayay ninka la yidhaahdo maxamed biixi yunis iyo nin kaloo cabdiraxmaan la yidhahdo aan maranaya inuu kenya wax ku bartay isna malaha safiirba kasoo noqdo aad iyo aadna rag dhowrahoo arrimaha afrika yaqaana oo badan baa soo ursaday ay labadaas hormarkeen marka waxaa la dhiiriyey war kaalay rag adaga soo kaxayso waxaanu samaynaynaa wax la yidhahdo loben marka wax xoog la saaray ninka la yidhaahdo ninkan haysta south africa kolkaa inaan ku dhalkuro meelo badan iska yimid oo dukumenti wacan baa la diyaariyo aad baa loo daalastay aad iyo aad waaya meel yaroo waxaan isku galowdha caadiya waanu sanqar tirannay maanaan tegin oo oyudaya meesheedii habeenkii aanu la ballannay wuxuu nala ballamay toddobada meesha fadhiisan saddex waanu ahay baan oonaya maxamed bixiiso isagaas yaqaaneen odayga faratono khaarijiga ahaa ee aniga marka dee waanu farxaansanna wuxuu dharkiina waa la buuxaa marka sawirtaa la isgeliyey meeshii markaan fadhiisan shirarkan afrikaanka waa kuwan buuqa badan leh kolba barnaamijka waxbaa jebiya
waxba aan nagu soo dulcay dowladda hoose isku dayaaratana imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa imikana dowladana gelaysa 11 oo colweynahan hawlkii aan ku jiro ayaa odayga soo baxay sharajogna hadda wuxuu yidhi hadda waan iga baxay beritan hawl badan baa taala imikana waxaan tegayaa qolooyin isku yar booqsamaan ugu noqonaya xafiis marka haddii aan lahaa safarka wanaan ka baxo waxaan ku balamaynaa dalkayga marka waxaa soo gashay oo u yeedhashow qalindaaray Ethiopia waxaa cabatay malaha Soomaalida oo tidhi dee ninkii shirka uga gudoomin lahaa wuxuu doonayaa inuu Soomaaliya qayb ka mid ah la shiro banaan kula shiro marka xogeyntii waxay cid baa u tiri Ethiopiana yidhi arrintaan inoo haki soo bax ra'iisul wasaaraha Ethiopia wax balana ma naan yeelan isagana umaanaan soconin isla nooga yeelino waxa ku mashquulsanaa meesha la yidhaahdo shirka afka dee dul saaraa marka hore ka tegi ayaa nin la soo diray arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa la bariis kooytoonka wax ku doonay ra'iisul wasaaraha muftiga misaanka adiga waan suuday waryaarahe xagee wax ka qaloocan khayr وحقه ترى محاله والله وهي نود أنا يفرطوا بصراحة وخرج كه حفيز من الحرام تغني مركن له يروح على الخارج شو حاجة كان أبيه حاجة كان روح وغيره فرماتو روح سوق حيث خارج كيس مركن حفيز كدين ميل بدون فريري أنا ميل كلا شو يفريها labadii kharje uu reebo wuxuu labadii nin kale xafiis rabaan ugu tar lecture buu noo akhriya wuu waa in heshiisa waa maxay kadiskan iyo wuu nagu adkeeyo farmaajo anugu heshiis baan diyaarka rasuuli aadna wada golaanaysaa hadduu ogaaday mar farmaajo oo ninkii waxayey wax walba waan ogolahay buuri haye sidii lagu heshiiyey oo waxa meesha ka dhacay iyo waxa isagu dan kamale waa heshiiyeysa maya dee ilayn arrintu dee isaga laftiisa kadis xaggan waxaanu kolkaa anugu ku kaabilood galayna waxa weeye waar ballantii Ramaphosa aanu ka sugaynay ayaa la arkan kicisay warkaas wuxuu leeyahay dee innaga isugu xigna jaar baynu nahay wax walba waan dhaweynaynaa wanaagana dee afkii diraasid ku hadlaya waxaan ugu dhiibaya deetana isaga farmaajo waa saaxiib waa markii Eritrea iyagii iswateen waa kii wax walbana dee siiyey dekedaha waddanka oo dhan marka anna waxaan ahay dee nin iminka iyaga ku cusub markuu nagu adkeeyaan ku yidhi aan mid kuu sheego aniga xisbi iyo baarlamaan baa doortay oo cod baa lagu doortay fariintaas baa laga dhiibay kala go'a midaan lagalama hadal ilaa aan iyagii ku noqdo iyagii iyo dalkii aan tagana deetana waxaa la waay markaasuu yidhi okay te isagii waxa markaa anagu hadana waxaa la yidhi waxa baxaya madaxweyne Nigeria markaasuu ii dedejiyay madaxweynaha protocol ku sii dhow yalla si hadlay te waaba ma fadhina salka ka fadhino deetana waxaan ku war imika halkan anagu arrintaas waa arrin culus distoorkay ku qoran tahay lama faragelin karo walaa madaxweyne walaa wasiir halka soo tusto in la wada aduu intii buu naga aqbalo wuxuu waa yahay maanta waa la kala baxaya kana laftiisu u bixi lahaa sida uu sheegay diyaaradii garoonkiisu habeennimadii diyaar baha dalka tu baxo laakiin waa loo yeedhay waxa waa yahay aanu kala baxno degdeg soo jawaaba marka waa nimidoo dee hay-adihii ay ku khusuusiyay caalamka waxa ku sheekadaas marka farmaajo wuxuu yidhi markii uu lahaa waa in Soomaalida wixii gaaray laga loo garabsadaa farmaajo wuxuu anu markaa tago waxaan akhriyaa khudbada ku garabsanayo wixii dhacay waanu akhriyay kasuu fududeeyey ha farmaajo laakiin wuu fududeeyey sida uu fududeyn karaayo dee ilaa xaggana barashar ma ka haystee iska yara afgobaadsi bay ahayd waayo wuu yidhi inaan ciidanaha odhan buu yidhi laakiin dee culays kala haysta
isagaba dad baa kasoo jeeda adigaan ku daalay taasaa keentay inaan dee dadkii o dhan idhaho reera maxay la tihi deetna abiyoo kii ku adkaystay heli war adigu farmaajaha soo kaxayn farmaajahan la hadlo ku war ma adiga soomaaligu ninkan kusoo qaadaya oo keenaya caqli ba ina wadada isfureen cidda isku keenaysa isla uu garsto wuxuu yidhi wallahi dee ninku isagaa aad wuxuu riixayaa inuu hadlo dee waatii muranka badan ka dhacay marka taasi hawl badan bay ahayd aad u isku heshiinay ninkii abiya markii dambe hadlana markii dhaqaaq weydaan ku war shacabka dee haya waxaan xukumay aniga saadan ma yihin awood badan igu kaadiba weliba taa lafteedana halkaa iminkaa markaa wada sheekaysigeennan aabi dhowr jeer buu kusoo noqonaya laakiin waxaan doonayaa inaan meel kale aynu yaro qabanno arrin kaloo waxaa jirtay iyaduna dhacday intii muddaxeleedkaagii oo ahayd xidhiirkii diblomaasiyadeed ee taiwan iyo soomaaliya xidhiirkaasoo niyow dadka badankoodu may filayn waddan fog oo aan la aqoonsanayn oo dee dadku ma garanaysaa dee taiwan way dee feker way ka haystaan laakiin ahamiyad ahaan oo mararka qaar dadku markay ka faalloonayaan aad maqli jirtay mararka qaar niyo waa dee muxuu ahaaye laba qaawani isma qaada xitaa maqlay anigu marka laga hadlayo iyadana lama aqoonsano innaga laynama aqoonsano dhinacna dee waxaa jira in dee qoladan dee china ay dee kulaalayso oo dee waddan dee ay leedahay annagaa dee iska leh markii haddaba aad ka munaaqashoonayseen idinku tiim ahaan in taiwan xidhiirka noocaasa aad la samaysaan ma jireen dad ma garanaysaa xogaa ka dardaar weriyo yidhi war amay china ina collaysiisaa hawshaas horta siday ahayd markaan soo koobo arrintaa inaanu taiwan la xidhiidhno waxa keenay halkan xafiis ilamka anfadhiya waxaa igu yimid safiirka china ee muqdisho jooga berigaas safiirada aad ugu iman jiray markuu yimid wuxuu yidhi soo degay waxaanu ahaa nin beri aad iyo aad maaragtay waxaana fakriska loo arrogant aan somaliland arkayn indhaha ku haynin oo aad mala wax loogu soo akhriyey dabeetana wuxuu waxaan kugu imid salaan isbarasha somaliland laakiin mid haygala hadlay waanu goosanaynaa oo politically inaanu dal gaara noqono doonaynaa siyaasaddu ma aaminsan annaga haddaan noo sheegna raalliga ma ka hor intaydan xitaa xidhiirka taiwan aanu jirin maba jirin xidhiir bee dhegeyso taiwan baa manaa noqone way isagaana baray annaga halkan annaga china dagaalkii adduunka dal annaga qayb ka mid a lahaa xoro qola ay kolkolisaa buuri halkan taiwan la dhaa malaa maqashay raasaan ku dhihi historygan ku dhigna formosa la odhan jiray ninkii waa waxaan ku ordi hadalba inoo bilaabi maayo oo adigu waxaa tahay safiirkii china magaciisu ay qoraan waanu sheegay ana waxaan madaxweyne somaliland magacaas leh haddaad tidhaha adigana ma aqaan somalilandna ma aqaan dee anna adigana kuma aqaano aroortii naga noqday xitaa dadkan qoladan reer galbeedku markaad wax qotaan hadal macaan iyo waxa gari kaaga soo wareegayaan oo waqti isagu markiiba tunja kaaga bilaabay arrintaa hay kala hadlay halka waxaan u yimid anoo aqoonsan inay tahay qayb ka mid a soomaaliya halkaasaan ku kala tagay markaa hanjabaadu idinkoon xidhiidh kala samayn bay idin bilaabnayba war ma nagaa cid mana jeeni dowlad weyn oo waxaabanu kamaleeshooda lahaynoo kaalay oo waxbahana ictiraafyada barlamaal geliyo oo halkaa ayaa ka filaya dee waana dal waa war waan meesha waxay shirkadda meel kasta waa inay dowladdu ka raalli tahay beetana maxaa inoo danaho muddaanu iska joognay warkaygii baxay ee inaan iskhilaafsannahay dhowr jeer soo noqonnay uu yimid aan iskula fahmi weyna war haddii aanad igala hadlaynin qadiyadda distoorka baan siiyey wixii ummadku hadashay may way marodi hadda iska daawa kule waxaan cuntaan ku siinaya kumana aqaana maaha waxaas wadooyin baan ku dhisaya dee maxaad ii dhisay ima taqaanidi way soomaaliya leed waad ka dhisaysaa halkaad wadadaad joogtay deeta adu halkaasi ka bilaabantay markaa taiwan baanu jellay faraton baa markaana joogay iyo nin yaroo leela liibaan oo ku-xigeen u ahaa way dadaaleen taiwan
waxa quraan ku heshiiyey laba isku qadiyad baan waxaan ku yiri anagu dee dal xorriyadda dib u soo qaadanana idinka tiinu waa tugaar wadinka reer galbeedka aad iyo aad isku dhun daloola siyaasadda dibadaha dowladaha waaweyn aad taqaaniin naga caawiya codkay gaarsiiye tiknolojiyaduna ku horumarteenna dadka arday badan oo qaadano bara labadaa qodob oo naga yeelay aad baa ugu shaqeeyey xiriirku markii haddaba uu dee soo markuu soo baxay iikaadee markii Taiwan baanu keennay aad baanu loogu kacay dadku aad iyo aad bay uga wacdooday ciddii aanu soo gaarno markaa ururta tiraa war dee saasaana qabsatee miyaanu storka miyaanu burburinaa dee miyaanu ka wareegna islaamaha waxay dhahdaa dumarka iyo maamaaba jirada ku tiraa waad bahan tahay lama bahla cuno waryaale waar nin diidan qarannimadaada ay adigu tii dhacday Taiwan baanu soo galay markii ay maqleen bay jireen waxay soo direen iminka darajadiisi ma aqaanaan wasaaradda khaarijiga meel sare qolo focac la yidhaaho weeyaan qoladii arrimaha dibadda ma aqaan aduu hadee alladii waxaan gooye waxaa gaadhaysa madaxweynaha wuxuu Taiwan jooji oo xafiiskanaad furaysa bacantaa jooji koo waxaa doonaysaa sheego 6 nin baa la socda anna waftigii waa hadheen waxaan doonayaa inaad naga caawisaa horta inaad na dhegaysataan ood noo garnaqdaan annaga iyo muqdisho inaad jeceshiin oo inaan dul xor ahaa kasoo noqonay aan ognahay intii baan yaanu iska daba akhri way ku dhici waayeen in arrintaa nala soo qaada halkii hore bay istaagtay maya taa iska daaya waxba aynu sida kale u saaxiibno weliba xafiiskan Taiwanna ka noqda waxaan ku iri horta nin aan dee naba ogolayn see wax noo dhex maraya wuxuu yiri dowladahan cimaaraadka waxay idin shaqeeyaan haddana la ictiraafsanaa nama ictiraafsanaa laakiin sidayna ugu ixtiraamaan nama idhahdaan xamar ka soo qaata laysan iyo xamar baan ku diranay ma aqbalade mucaawanadii koon maxay ahayd European Unionkii aanu haysta haddaa soo maraysaan xamar marka arrintaas dee halkaasaa midkaa meel buu istaagay halkii baana istaagan tahay China waa dowlad xoog weyn waynu u baahannahay laakiin danteeni baa iska hortimid markaa laakiin dhafoor taabashay ka bilaabantay hawshan ya kuma aqaanay maqal dee waa arrin adag maye waa ninkaasi asxaan weyn buu inoo falay haddaba intaynu Taiwan ku jirnay iyo arrinta China horta inkastoo markaa horta dadku si aad iyo aad buu diiday iminka wadani Abdiraxmaan iyo xisbigiisu dhambele ka duuriyay dad badan waxay islahaayeen dee horta may ogeyn sidan dee ma garanaysaa dee China intay timi ay dee idinku galgalatay Taiwan oo dee meesha joogta dee halkaa dee ay wax isku beegmeen waa runtaa madaxweynuhu markii muxuu ahaay ololuhu socday waxyaabaha xukuumaddaada aada ugu dhaliileen bay ka mid ahayd imikana waxay u egtay inay aada u sii amba qaadeen dee xiriirkiisiiba kordhiyeen oo waatan imika dee coast guardka heshiiska lala saxeexday ma xog cusub bay heleen saa aad sheegayso oo idinkaa dee wax ku kala wareegay iyo dee inay arkaan dee dadku dee Taiwan iyo malaa keligeed maahee waa humburo libaax bay soo wadaa bal maxaa bedelay mowqifkooda markaa dee waxa bedelay xog ogaal baan ahayn ninkan dibadda markuu joogo ee dowladda la maagayo culayska ninkan madaxweynaha haysta kuma oga madaxweynuhu dee intuu suuqa yimaado muhaafiriinta ka hadli maayo dadkana cagta ku dhigi maayo waana kula marka la caadibadaysay ama kursi la doonayo ama shaqo la dadku waxbay dee nin baana shaqo doonay imtixaan ku gudbi waayo wuu caaya wiga ahda jaamaciga sii hor khamo ah marka waxay dadka xogaan bahaysay markuu ninkii meeshii yimaado oo dhibaatooyinka arko dee dambu halkii ugu roon u keenaya marka xoglaan bahaysay waxaana eegayeen inay yidhahdaan dowladdan dee waa dowladaha waxba garanaya China biliyana oo adduunku adag bay sii dirsan Taiwan bay inoogu yeedhay wayna jebinaysaa dee waayo China hadduu ku weli ilaahay waa ilaahay ku keenay soo qabo marka ikhtiyaar horta marka horeba meesha muu jirin waayo dadku inta badan waxay u dhigaan waxay yidhaahaan xukuumaddii madaxweyne muuse bixi waxay kala dooratay China iyo Taiwan waa dhab
marka ikhtiyaar markaa meesha dee iyagu ikhtiyaar bay namay siin hadday ku leeyihiin may siin dee ayla soo qaadin waxaa tay imay siin iminkana halkiiba ka taagan yihin iminkana halkiiba ka taagan yihin hawl waddankeena ka dhacday oo aada u culusayd oo aanan doonayn inaynu soo haayay waayo arrimaha dibadday ku kooban tahay laakiin waddankan chinesku beri dhoweyd oo uu qabtay hearing senator ted cruz oo aynu goordhow ka hadli doono waxyaabuhu soo qaaday culaysyada ay somaliland ay ku hayso china oon ahayn beri dhoweyd inay hawada oo kale magaranaysa hadday taiwaniiska ka xayireen baasaboorada soomaaliya laascaanood iyo maaragtay meeshaas sool inay chinesku dee ay halkaa ka wadaan dee qalalaase amaba ay dee siinayaan hadduu badankeeda leeyahay taageero ama siyaasadeed ama military bilowgii shaqaaqooyinka halkaa ka dhacay oo dadku inta badan dee ay organic ku arkayeen kacdoon dee dadweyne oo dee magaranaysa intee in leeg baad isleedahay china hawshaa way ku lug lahay horta xog badan oo aan dhahda 1 2 3 ma hayo laakiin media waxaan ka arko dee madax nimanka jooga canood xarunka tagaaba jaanuu soo dhaweeyaa waa noo shira dadka iyo miduna aad bay isugu xidhaan inuu kacdoonkan ka qayb yahay laakiin dee anu fact imika aan dhaha tahay taa laakiin waxaan ogoon inay siyaasiyiin aad soo ogol yihiin fair enough waxaan waynu ka gudbaynaa waxaan doonayaa waa isla soo maadarag wada hadalladiina maaha haddana somehow isla mandiqada jabuuti oo ma garanaysaa waddan adigu aad ahayd madaxweyneyaashii xidhiidhka ugu dhow lahaa iyo weliba dee madaxweyne ismaaciil cumar geele berigii dhoweyd ee mou ma garanaysaa somaliland iyo ethiopia ay kala saxeexdeen heshiiska is-afgaradkaasi wuxuu yimi waxaad 29kii December baad joogteen Djibouti oo Ismaaciil idin dhexdhexaadinay bisha kowdeediina Addis baa lagaga dhawaaqay MOU halkaa waxa ku jira in ma garanaysaa dee ku talagal ay ahayd oo idinku aad malaa dee marka horeba idinkoon waxba ka filayn haddana aad shirkaa Djibouti ka qayb gasheen halkaa in yar baa ka maqan oo dadku aanay fahamsanayn oon jecelay bal inaad aad noo xidhiidhiso wada hadallada dee qaanac baynu ka taagnayn waxba dee kamay soo baxay haddana waa idinka halkan kale ka hilaacay bal hawshaa noo yara faahfaahay dadkaas hawshaasi way kooban tahay shirka Djibouti markii aan tagayay iyo markii aan joogay waanu sheegay inaan January first-keeda la ballansanahay habiye washirale way ogaayeen ba qolada beesha ugu joogtaa way Soomaaliya iyo Djibouti waanu sheegay shirkaygana waxaan ku adkaystay in la hore ugu dhameeyo aan maanta la dhaafay saasaa loo soo koobay tira waan tegey oo weliba rutin waan kala marka iyadoo way ogaan inaan tagayo shir aan leenahay dee malaha cidna ay odhanayso maxaad jintaan ugu sheegi weyday taas dee malaha mid macquula dadku isma quuraan baamushirku isma quuro dad kale waa shaqeeyaa hawshaa laakiin meel adag barikaada arrintii waanu galnay inay arrin aad iyo aad u adag tahayna waan ogaa laakiin waxay noqotay inuu isagiina diyaar ahaa annaan diyaar ahaa waanu ku heshiin labadeeda inuu culas baan kuwenaya waanu garayna Djibouti aad bay ugu xanaaqday wariya madaxweyne anigu ilaa maanta ma garanayo waxaan Djibouti siyaasadeeda iyo dhaqaalaheeda iyo haraftooda midna u dhimay waynu u geysanay ma garanayo caradaasi halkay ka timid waqtida waa la ogaan doonaa waqtigaa keeni doona laakiin anu ma hayo miyaan laakiin la odhan karayn dee somaliland la aqoonsan yahay oo imika hal dekadoo keliya aynu leenahay hoteena berbera ah warbixin baa jirtay beri dhexdii ahayd uu soo saaray baanka adduunka oo aad moodeyso dee dekedaa berberi inay dee ku hayso adeegada dee loolan dhaqaalo aada u weyn oo dee Djibouti dee aanay ahayn dee makhaayadda keliya dee ka shidan dee mandiqada miyaan la odhan karin markaa Djibouti waxay warwar ka qabtaa in dee ma garanaysaa uu dee culays dhaqaale ku yimaado dee somaliland wixii dee isticmaalayay bar halkaa maraan
haddii aan kuu sheego xaqiiqada ka jirtaa Jabuuti haddii ay Etoobiya Jabuuti waxay doonto berbera ka qaadato werar kuma hayso laba sababood labadaba horta Jabuuti waxay ka horeysaa in badan badan oo in 20 sano gaaraynin meesha la berbera hadii loo qaadan kabaastiga dowladda siday u qaadaan siday u dejiyaan shidaalka hamaha u dhisan waa aad iyo aad bay ugu horreyn wuxuu weyn tu kale ka ururbayaanoo Etoobiya waa 100 milyan oo sii kordhayo oo Jabuuti iminka markabka yimaada iyo Etoobiya waxay ku qabtaa dhibaato badan marka bil baa la sugayaa gaari wareer taagnaanaya oo kala rari kar lahayd oo kun baabuur maalintii 200 baabuur baa ka baxa tiro ku dhow marka laba weerar dhaqaale oo berberig waxa u tarto oo ka fududeysa hawsha taale mooyaane dhaqaale burburka ka imanaya iyo berbered Jabuuti ku gaarsa technology iyo hawsha taala ma aha boortka taayir dee Soomaaliland colaad u qabtay Jabuuti oo dadka isku dheeyno dee siyaalo badan waa isku mid bal marka waa arrimo u baahan taariikh aan imkaan u garanayn waay maxay u dhacaya ma sheegi karo idinku adiga iyo weliba inta dee karaankaaga ah dee faragel jira dee hoos baa loo dhaqaaye inta karaankaaga ah adiga iyo dee Ismaaciil Cumar Geelle dee laba qof oo aad isu yaqaan muxuu ahaaye dad badanna inta badan ay odhan jireen weliba Jabuuti Somaliland waxay doonaysaa inay ku hayso hana dhiman hana noolaan adeegad halkaagaa iska joog bal haddaad dee nin weyn baad soo xoggaal ah kolley meel baad saaraysaa warwarkan ay ka qabto Jabuuti ma Jabuuti oo keliya oo dee dhanbaa oo macnaha shacab ahaan iyo dad ahaan mise dee waa arrin baad isleedahay dee madaxweynahooda ku qoon kol haddaan ku dhayn wax walba facts ka haya qof waliba wax u malay karaa qof waliba mala guud war dee dadka hamasaat suuq jiray oran jiray abaasha alharam ayaa qori jirtay marka inta badan waxay dhahdaan hamasaat waxay suuq ku sheekaysaa run buu noqdaa anu wax imika arrimaha aan tilmaamanayo waxay xasii Jabuuti halka way carootay ilaa imkaan garan lahay war waxaa loo dhigo berber maba gaari karto maba soo qaban karto halkay maraysa ee maxay ka rabtaa marka waqtigaa sheegi doona taa waqtiga dhaafayna fair enough laakiin inaynu muxuu ahaa MOU-gaasi dee ilaa maanta horta muu fulin marka waa takaleen doonay inaynu uga gudubno waxa weeyaan waddankaas Soomaaliya maaragtay cabashadii iyo siday isu lahaayeen hawshaa joojiya dee waxay u egtay inay ku dambeeyeen inay noqdeen maxmiyadday Turkigu leeyahay khayraadkoodii badda kii dhulka shidaalkoodii ay masaray kaalaya inay Soomaaliya ay noqotay koosarad xabaal taala heshiiskaasi dee faa'iidadu Somaliland ugu lahaa oo ahayd inuu dee warkeedii adduunka oo dhan cirif walba ka dhacay laakiin waxay aniga ila eg tahay dhaawaca ugu weyn ee uu Soomaaliya u geystay inaanay 200 sano soo socda ka soo kabanayn adigu arrintaas aad u aragtaa horta Soomaaliya dee ana waxba ka oran maayo ninkaas uu ku caayo col baan nahay waa bisay iyaga waxooda ma jeclaan daan iyaga toos ula hadlaynin dhexgeli maayo socodkeena heshiiska waxa ka hor yimid ururka Afrika iyo ka Carabta oo ilaa dowladaha haweeneysa Mareykanka oo kale iyo u qeyshaday waayo majority-goodii Soomaaliya ee markay cabatay way dhageysteen wixii Carabta ku jira oo dhan baa horta raacay carab sheeganayay dabeetana Afrikadii kalena waa laga howlgalay oo Masar xoogaa meesha hogaaminaysa oo Ethiopia codkii Afrika hor joogsay cid kale uma joojiseen in xarunta laga raro soo barbaskarinaya haddii arrintaas ay socodsiiso ay maqal weyn haddiisina xarunta laga raro iyo barbarkiin qaarkood marka Ethiopia arrintaa waa laga adkaaday inaga xaggeena uu ka fulay Afrika ka adkaatay iyo qeyradii Soomaalida iyo Carabta ururkan Carabta intuu Carabtii aamin waayay uu Islaamka u yeeray markaas saddex conference baa isku raacay Afrika Arab League iyo Islamic Organization oo kuntan dowladda saddexaas horjoogtay Ethiopia waxaad tidhi inaga xaggeena oo inagu dee wixii aynu dee
aynu ku bedelanaynay heshiiska wixii aynu ku gelaynay dee gacanteenu ku jira dee diyaarna waynu ahayn oo waxay u ekayd dee dadku aduu aad baa looga falceliyey laakiin inta badan in aqoonsi iyo dee arrimihii la shaaciyey la isweydaarsado waxaa tiri laakiin dhinaca etoobiyaanu ka fulin ha taasina markaa ma filan waagun bay ka ahayd mise way yare ina ishaafalataynayeen oo xitaa aqoonsigeenna diyaaruma yahayn etoobiya maya anagu saan ku heshiinay labadoo diyaar baanu nahay laakiin muu filayn in afrika iyo carabta iyo intaasoo gurmud isugu imanayaan culays badan baa la saroo balash badanoo siyaasaa ku dhacay Fair enough. muxuu ahaayey waxaan doonaya haddaba waynu soo yara dhawaana imika halkan ay marayso muxuu ahaayey arrinta somaliland ee weliba maraykan beri dhaweyd baad halkan aad noogu timi waxaad aragteen senators fara badan waxaad la kulantay dad badan oo xukuumaddan ka tirsan maantana waxaad moodaa intii hore oo berigii hore senator wish oo ah maaragtay senate foreign relations committee waxaa ku soo biiray ninkan cusub ee ted cruz oo soo bedelay halkii kursigii wasiirka arrimaha dibadda ee marco rubio halkaasuu joogaa oo isla guddigaas ah maalin dhaweyd waad la socotaa waraaq uu u qoray madaxweynaha trump oo uu leeyahay somaliland ha la aqoonso haddaba intii aad joogtay waxaad jirtay in marar badan mar ay noo yimaadeen ninkii haystay africam ee general townsend in qoladan maaragtay ciidamadooda africam ay aad u yimaadeen oo berbera ay dhowr teer tegeen dee dadka inta maaragtay dee dibadda wax ka soo eegeysay aan xoogaalkahay waxay u eg tahay dee howlahan soo socday oo markuu ted cruz uu waraaqda madaxweynaha u qoray dee wuxuu yidhi somaliland ahamiyad weyn bay u leedahay ma garanaysaa national security interest of the united states amaba iyo istaraatiijiyaddii ay mandiqada ka leeyihiin taasuu sababta ugu weyn ka dhigta intee in leeg ayay ma garanaysaa aynu isla gaadhnay maraykan adigu muddaxileedkaagii wixii aad ka hadli karto oo dee hawshani waxaan leeyahay wax cusub uma eg bal halkaa faahfaahin naga sii dee maraykanka horta waxa la qariyo oo adduunka imika la kaydaa ma jiree babligii maadaama dee dadkii warku noolaya waa inaad babliga gaarsaa waxa wada haddii kale shaydaan kala warramaya marka maraykan waxaanu isla gaarnay inay aad iyo aad u danaynayeen somaliland ay uguna u weyn tahay maadaama shaynuhu xoog noqday oo ay sareynayaan dee si cold warki haddii jabuuti uu la wadaagay inay berbere degaan taana somaliland haddaynu waanu ka iibinayna markii hore aan meesha u yimid su-aal baa taallay imikana weli taalla beriga hore iyagoo yidhi waxaanu saldhigga noo siiyey oo waxaanu doonayna ka dhigta military waxaanu la bilownay ciidamadii noo yimid iyo safaaradoodaba war nooceebu noqonayaa saldhigga meesha imanaya saldhigyadu ujeedooyin badan bay kala leeyihin mid waa mid dagaal mid waa mid taakulaynayd mid waa mid surveillance wax badan baa macnayaal badan bay leeyihin mid walbana waxa ka abuurma dantaada xeer dee adiga waxa ka iman doona kaa nabadgeliya saldhig ma tahay dee ma soconayso maantana tii way taallaa way soconaysaa way dalka la ilaaliyaa waynu u baahannahay isna waynoo baahan yahay waa la baargangarayaa ta ugu dhow waa maxay hadduu ciidan dagaal yimaado ama maraykan ba imika dee cidda ayaan waxa ugu kulul dee carabta oo dagaal hegeysa waxa ka dhacaya xoutiyiintan waa ninkan jaarka ah markaad maraykan adigu la heshiinayso ogow xoutiyiintii oo dalkaaga oo dhan gataar soo gaarsin karaana dee waad culubaysaa dee aanad xal u helin marka waa in dee su-aalaha dhabtikaala la eega oo haddaad ii baahan tahay ana culayska soo fuulaya waa kan marka horta dee waana securityga iga suga securityga anaa ilaalinaya dee ma su-aal baa ka imanaysa oo ariga maxaad ciidan igu dhisi waayeysa marka aqoonsi buuxa maya aqoonsiga hadda xataa hadda aqoonsigood baada waxa imanaya dee saldhigu dee waa arrin adag colaad baad gelaysaa marka waxa weeye beriga hore markaan doodaa la galay waxay dhahaa dib inoogu dhiga
oo markaa dee gasana may jirin jaaruna sana muxuu weyn way ka jiibsaday commercial baa ka dhiganaa waan ku heshiin haddana waxaana soo kacay iyagaa u baahday dee kolkaa waxaanu anagu isla joogay keliya waayahay aad timaadaan waanu ogolahay haddana waxaan leeyahay waynu ogolahay inu ogolaano mar dee shiina dee aynu isla marlaan wili taiwan baad u hadashay waxay la tahay inaynu la hadalno oo aynu laakiin danteenna aanaan usduufin day oo arrin u baahan heshiiskaa saldhigga lagu gelayaa dad badan oo aqoon waxa u leh in laga wada hadlo oo securitygeena mustaqbalkeena ciidamada joogaya suu joogaya maraha dhowr iyo dee boqolaal iyo dheeraad buu ku leeyahy maraykanku adduunka mid walba xeer gaar u leeyahy iyadoo ay ku xiran tahay nooca ciidanka joogaya iyo miisaanka u leeyahy markaan waan soo dhaweynaya hadday imanayaan waxaana leeyahay hala soo dhaweeyo ictiraafkana ha laga doono haddaad maraykan ictiraaf ka hesho adduunyada inteed badood ka helaysa waa xoog waa halka u sarreysay taasa haddaba labadaba dadku anigu waxaan oran lahaa waar inta aqoonyaha qurba joog guda joog caqlile ku yaqaano waxyaalaha la isugu tago oo jaaniskaa maanta aynu ka faa'iideyno taasa ku talinaya marar badan waxaan maqlaa marka dadku ay ka hadlayaan aqoonsiga somaliland dhowr arrimood ayaa aada loo soo qaada horta midi iminka markii etoobiya laga wada hadlayey magaranaysaa dee arrintii is-afgaradka oo aqoonsi in lagu bedesho dee howlo kale dadka badankoodu berigaa waxay lahaayeen etoobiya waa hal wadan eegada kosovo waxaa aqoonsan intaasoo wadan maalin dhaweyd waxaan maqlayay isla tii oo kale oo la leeyahay maraykan oo keliya hadduu ina aqoonsado maxay taraysaa marka gorgortankaa aad leedahay ha lala galo oo magaranaysa garteenna aynu akhrisanno miyaanay muhiim ahayn maraykanka in la yidhaahdo dee aadna aqoonsatidee maxaa yaa kaleed wadaa xulifo ah waliba midaan kugu daro maalin dhaweyd baan waraystay safiirkii hore soomaaliya u fidiyey maraykanka larry andro wuxuu yidhi 2006 intaan weliba isagoon safiir ahayn dee dowladda maraykanka iyo ingiriisku labaduba waxay diyaar u ahaayeen inay aqoonsadaan somaliland laakiin waxay raadinayeen hal wadan oo afrikaani inuu ka hordo marka maraykanka markaynu la gorgortamayno inaynu leenahay dee aad naba aqoonsatid oo dee adiguna danahaaga aad kushisid ma odhanaynaa yaa kaleed wada iyo weliba wadamadan jaarka horta markaad halkaa isla gaadhaan dee qof waliba ra'yigiisu soo jeedin doona laakiin maraykanku hadduu ku aqoonsanayo cidna uma baahna waa super powerka adduunka halku doonaa wax dhigi hadduu ictiraafana dee waa tareenkii adduunka u weynaa anu waxaan qabaa inay inta isaga la socoto ee uu dee isagu hayo ee dowladaha caalamka ahi markuu dhawaaqo inay intooba saacad ay ku wada dhawaaqayaan tusaalan ku siinaya israa'iil markii ay ku dhawaaqeen dowladnimada 2 minutes ama 3 minutes kabacdu maraykanku aqoonsaday 1 hour gudaheeda yurub dhan baa aqoonsatay marka waxaad iyaga awooddiiba lahaanayn hadduu awooddiisii maanta china eryayo oo barba ka qaaday stil haddana maanta waa tooraha wadanka adduunka ugu xoog weyn marka waa chance wanaagsan baan leeyahay arrinta aynu ka madhaalino laakiin waxaynu u baahannahay dee waxayna saaran ila dowladnimadeenu helo raaseen xamar geyno noomanaan garanayn waxaan loo galaba marka waxay maraykan baynu tagaynaa maraykan dantiisu eeganaya kuu daran maayo adeeg kuna tuuri maayo kolba waa intaa kala goostaa adduunyadu waa saas waxaan dantooda aqoon dadkeena waa inaad taqaanaa intaad goosan karayso halkaad istaagi karayso iyo halkaad ka tegay intaas bayna inuu xoog saaro u baahana waxaan doonayaa waktigeennii adugu inaan de naga dhammaan mayso kolley waa xusuus reeb waraysi keliya maaha waa xusuus reeb oo arrimaha noocaasa dhacdooyinka noocaasa in dee aynu aada uga sheekaysano hadduu ilaahay yidhaha weliba tii arrimaha gudaha doorashooyinkii eegada qabyadu waxaan doonayaa hal su-aal inaynu kusoo gabagabayno muddo xileedkaadii 7 sannadood ahayd wixii ugu wanaagsanaa ee aad isleedahay way qabsoomeen iyo halka shay ee aad ka seexan weydo aad isleedahay niyow haddii aan jaanis u heli lahaa taa waxbaan ka bedeli lahaa
wallaahi horta haddii aad tidhaahdo maxaad qabatay ugu weynaa horta waxa ugu weyn oo aan qabtay oon isleeyahay malaha waa ta ugu wanaagsan waxay noqonaysaa labada doorasho oo ta maanta somaliland inuu maraykan iyo cid u soo ay ku bogaasay ugu soo jeedsato dad xukuma oo nabad ku wareeg kala leeyihiin tii baarlamaanka iyo dowladaha hoose oo aan weligeed cid qabanay saaran inaynu si xore u qabanay oo dhaqaalahayna weerarhayn iyo tii madaxweynaha wax kaloo aad iyo aad xoog u saaray oo le waa wax u wanaagsan aad qabatay mar walba dowladaha afrikaanka iyo teenaba marka doorashada la kala wareega buuq baa dhici jiray tii reyaala mooyaane marka inaad taana buuqlaana ku dhameeyey oo si wanaagsan oo degan oo weliba dadku ay warwar badan qaar badan ay qabeeras lahaa ninkan maaha waxaa saa ku tegi baa anaan shaqoondee oo iyo waxba lama ogolo wax lagu akhriyayo marka waxaan leeyahay laba tallaabo oo waaweyn marka loo eego ayay tahay to saddexaad baan ku daraya marka labada ka eego politically waxaan ku faraxsanahay inay gaadhay magaca somaliland iyo qadiyadeedu halkii ugu ballaadhada adduunka miidiyaheeda ku gaadhay waxyaalo badan oo maxalkooda aanan garanayn oo korbaasmala tantan korta ama ku dhibaya oo nin walow yimaadaba haysta meesha waxa weeye siyaasadda gudaheena oo dhib badan u adeegdo siyaasadda gudaheena toddobiita korkii la kala helay dee taageerasha wadana way diiday waana ku dhamaystay toddoba sanadii ku dhamaystay deetana waxaan ugu adkayd sidii loo maanaj karin lahaa arrintaa ee aan la isku dhicin kolkaa arrimaha kuwii soo maray meeshaan dhibaato kooxaheen ee dadka arrintan gudo markay reeroo qulasay xal baa loo helaa ee reerku ismaqlaayo ee suldaan qura leeyahay ee oday loo war leh laakiin dee reerihii waxay noqdeen iminka dee saadintii oo dee ciidaa ka badatay marka waa inaad jees halkii caaqilka meelkiisa yidhatay u gaadha aad kala hadasha waa dowlado gaar ah waa dhibaato dhibaatada labaad ee taa ka sadirna waxa weeye halkan waxaa jooga culimadii oo intaasoo fariiq ah waxaa jooga halkan oo soo kordhay dee dhalinyaradii horta dadka raggan iminka kuto jirka kule dhalinyarada iyo afarta jir iyo ilaah yaqaan qoladaasoo iyagana helay technologiga cusub oo dee reerkii ninka adu reereed baa ku warramaya iminka da kasto ka yaraaye toban jirkaha ayaa ku warramaya oo habeenkii waxaanad akhrin iyo si aanad u baalkan isticmaalba soo wada helaya marka way jiraan qodobo dee lalahaa masaa haddii loo saa kala loo hanargaran lahaa kolka murmo badan oo dadka aanu galay way jiraan laakiin waxaan ku caloosabahay anugu tension dadka aan isku qabanay mid kastaba ahaadee laba qodob midna ma gelin oo waan iska hubaa anoon u jeedin waa dhici karta inuu qoladkaas kala dhaco laakiin qofkaa ka aargooso ama uu ku diidan yahay kuwa geeji marna ma isticmaalin laba wax qaranku leeyahay oo ama qaranka wuxu dhimaya oo shisheeye oo soo gala ama wax loo ogolaado wax maaragtay dee loogu habrado labada midna maan gelin marka waxaan aad iyo aad igu adkaaday oo kuwa dambana haysan doona ka joogana haysataa waxa weeye communitigii soomaaliyeed ma inagoo qura maha somaliland waata kuwa muqdisho haysata meel kasta la joogto dhaqankoodii ismaqalkaa reermiye ninka qura jira odaybaa noo hadlayna way ka tegeen oo intay soo shiraan odayga wax dhibtaan deetana waa nin waliba halku ordo waxba la ixtiraami maayo runtiiyo beentii laba kala saari karaayo kanaa run sheegaya kana
waayo waxay dadku waxay badsan dee waxa markuu wax doonay ma miir qabo marka arrimahaasi waxay u baahan yihiin dee arrimahaas waxaa malaha maad dhammayn oo siday ahaa inumaad waajihin ama way ku adkaadeen kuwaasaa jira madaxweyne aad baad u mahadsan tahay waad again waktigii xitaa waad nooga badisay intii hore aanu kaa filaynay maya insha allah dee waraysiyadan iyo qaar kaloo kasii badan waayo mawduuc walba marka sidiisa aad loogu gudagalo ayaa dee laga bogan karaa hal waraysi haddii lays yidhaahdo wax walba kusoo kooba wuxuu noqonayaa dee wax yaroo magaranaysa dee deg dega marka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waktigaaga insha allah waxaan aad u jecel lahay bal wixii kale magaranaysa arrimaha gudaha doorashooyinka adigu dee hawlo badan oo kaloo jira bal iyagana inaan mar dambe kaala hadalno hadduu ilahayo haddaad waa mahadsan